rabin inaan sii idhaahdo waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Maxamuud oo lahaa mudnaanshaha iyo furitaanka jaamacadda dugsiga tababarka hawshiisa raadinaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أيو ما سيهاي مدحويني أحمد iyo intii ka horeysay ahada shayba iyo hadaladii wanaagsanaa way aragnimada iyo taariikhda ku saabsanayd aad ayay u ahaayeen munaasab in halkan laga jeediyo marka ugu horeyso waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo xubnaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta horteena jooga halkan ku dhaartay magaca Ilaahay wax ka weyn oo ka macna badan oo lagu dhaartaahina ma jiraan aan islaahay waxba idin ma dhinna meeshii ugu dambeysay ee qof bini aadana lagu aamini karay mas'uuliyad loogu dhiibi karay waad ku dhaarateen duruufaha dalkeena maanta sugan ayaa keenay in sida walaalkii Axmed uu sheegayay in magacii qabiilka iyo maxaan ku yiraahdaa magacii Ilaahay iyo mas'uuliyadii wixii inay si uun ay isugu dhaxyaacaan waxa keena duruufaha laakiin waa ka gudbaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhiyan markii hore waan wada garanaynaa taariikhdii marka la qorayo mar walba waxa loo qaybin jiray gobolada iyo degmooyinka dalka dhammaan inta loo qaybiyo ayaa laga soo qori jiray markaas kadib inta la isku keeno haddana la isku dhafaayaa hal tababar la wada siiyo ayay sida ciidan maxaan ku yiraahdaa Soomaalida oo dhan ka kooban ay u ahaan jireen hadee waxaan isleeyahay magacii iyo muxuu ahaay hal laga bedelaa hadii la doono laakiin waa sidii degmooyinka laga soo qoro oo dalka oo dhan laga soo qoro markii la lahaana waxa looga dan lahaa waxay ahayd Soomaalida oo dhan ha ku jirto oo ka muuqato oo ka mid ahaato haatan muxuu ahaay sida la yeelay ujeedada laga lahayd dhinaca fiican yaan ka qaadayna waxay ahayd Soomaalidu ha ka wada mid ahaato ha ka wada muuqato ayaa muhiimadu ay ahayd hala micno tira iyo hala qabiileeye iyo hala muxuu ahaay magaciisi marna ma ayan ahayn marka tii wadadii baan qaadnay muhiimadu waxay tahay ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed inay ka koobmaan dadka Soomaalida oo dhan sheekada iyo dadaalka iyo effortiga isku dhafkana intaas uu ka socday duruufahaas keenay in la yiraahdo maxaa raasana ku yimaado oo haloo wada dhamaan reer ma joogaan warwaana anigu waa laga tira badan yahay boqol aan ahay kaasina waa 200 waa un iman kartaa laakiin aniga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid maahi mana ka tirsani dadna kuma lihi sidaas daraadeed aniga ciidankaygii maaha inaanay dhicin waayo ujeedada ugu weyn oo aan rabnay inta kadib maalintaas ay waxaasi dhacayn tababarka aad soo marteen dhaarta maanta aad dhaarateen dhammaan waxay tahay inaad shaqo ku lahayn maxaan ku yiraahdaa meeshii aad ka timid iyo sida aad ku timid laakiin waxa maanta kelmadaha maanta aad ku dhaaratay xilka aad qaaday waa midaas muxuu ahaa maanta wixii ka dambeeya lagu la xisaabtamayo 20 iyo dhowr sano way nagu filan tahay wiilal badan qiibi badan dhiirana yaa ku soo dhintay oo ku soo dhaawacmay oo qaarkood curyaamiin maanta ku yihiin iyagoo aan la garanaynin sababta ay u dhinteen reer hebel oo isdiray iyo beerti reer hebel iyo geeli reer hebel difaaciisa marka macna badan runtii ma ayaan lahayn wax aad iyo aad u xanuun badan murugo badan laga xumaaday ahayd inay dhacaan laakiin maanta waan soo aragnay waan ka nimiday maanta wixii wax ugu qiimo badnaa ee qofka bini aadamka naftiisa inuu u horay ahayd waa midda dalka diinta dadka amaanada maxaan ku raadaa sharafta iyo haybadda waa midda maxaan ku raadaa macnaha loo leeyahay loo nool yahay ee loo jiro marka waan rajaynaynaa Ilaahay idankiis in arintaasi ayna wada deeqdoon meesha u istaagno waxa soo haray ninna xantiisa ma moogaa la yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xamar sooma dhaafaan iyo sheekada madaxweynuhu ka hadlayay hadda xagee u soo dhaafayeen meel u soo dhaafaan ma qaban hadda bay qabaan meel u soo dhaafaan marka maanta wixii ka dambeeya la qiimeynaya inay xamar soo dhaafaan iyo inaanay soo dhaafin maanta iyo wixii ka dambeeya ayaa muxuu ahay la ogaanayaa muxuu ahay wixii dhiman sidoo kale waxaan rabaa inaan bogaadiyo una hambaliyeeyo guddigii uu horkacay wasiir dawladda wasaaradda gaashaandhigga ka koobnaa xubnaha kala duwan ee dadaalka ka geystay sidii aan maanta halkan u soo istaagi lahayn oo aan u imaan lahayn bilow fiican waaye laakiin shaqo badan u dhiman
halkan shaqo badan uga dhiman tahay deegaanada iyo maxaan ku rahaa dhulkan gobolada jubbooyinka shaqa uga dhiman weli ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed awoodeenna maanta tiradii loogu talagalay weli ma dhamaystirna marka hawlo kale oo deegaano kale iyo maxaan ku raahday dhul kale oo ka tirsan maamulka Jubbaland ay u sii safri doonaan oo inta ka sameeyeen oo kale ay ka sameyn doonaan hadii alla yiraahdo inta kadib waxaan rabaa inaad ogaataan waa jeclaan lahaa taliyuhu uu ka hadlay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya asaaskiisii laakiin odayaashii jooga biriga ciidanka la asaasay qaarkood inay inta noo yimaadaan nooga hadlaan maalintaas duruufihii lagu aasaasay tabartii la lahaa awoodi jirtay waa la garan karay maantana waan tabar daranahay intii baan joognaa waana ka imaanaynaa meeshii 60kii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inta ka yimiday 7 uu soo gaaray waa la ogaa oo muddo maxaan ku raahdaa dhowr iyo 10 sano ah oo ku soo gaaray ciidamada Afrika kuwa ugu xooga badan ugu discipliinka badan ugu maxaan ku raahdaa xirfadda iyo aqoonta badan ugu tababar adag inay noqdeen haddana inaan meeshaas iyo meel ka sii waliba qarniga 20aad oo wax badan oo casri ay soo kordheen meeshaas iyo meel ka sii fog inaan gaarno wax diidaya ma jiraan waana gaarina Ilaahay idankiis marka waxaan rabaa inaan arintaas waa midaas wixii tabardarri iyo awood yari ee xadida waa halkeed laakiin ciidan qaran oo dalkan uu leeyahay in la dhisay mabda ay naga tahay mana ka gaabinayno waana ku dadaalayna hadii alla yiraahdo halkaan uu ka bilowday isku dhafku uu socon doonaa dalka oo dhan ciidan xoog dalka Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka kooban ayuu noqday qaybtii koobaad waaye dadka jubbooyinka degan in la isku dhafo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jubbooyinka joogay uu ka koobmo dadka Soomaalida ah ee gobolada jubbooyinka ku nool waaye qaybta koobaad ama fayska koobaad ee hadda la dhaqaajiyay sidaas oo kale ayaa meelaha kale oo dhan laga soo sameyn doonaa fayska labaadna waxay noqon doontaa hadii alla yiraahdo kan Jubbaland jooga iyo kan Puntland jooga iyo kan Koonfur Galbeed jooga iyo kan Galmudug jooga iyo kii meel kasto Muqdisho jooga inta ka dhaxla haddana in dib la isugu dhafo haddana la isku sii daro oo maxaan ku yiraahdaa ay marka ay noqdaan Soomaaliya oo dhan oo isla socota inay noqdaan kooxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama unuga ama horinta ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muuqaal Soomaaliyeed inay leedahay saa marka loo eego alla ilaahay waa muuqaal Soomaalida oo dhan way ka muuqataa in la dhihi karo waaye hadafka loo socdo oo aan bilow ka nahay maanta meesha aan joogno aan bilow ka nahay aad iyo aad ayaan arintaas ugu han weynahay waanan gaari karnaa waanan gaari doonaa Ilaahay idankiis waxaan rabaa marka inaan hambalyo hambalyada ku soo waxaan rabaa dardaaranka war annagu dalkan annaga iskale mas'uuliyadiisa waaye waxa u dhaaranay adigu maanta u dhaarateen annaguna aan horay ugu soo dhaaranay dhaartaas inaan ka dhabayno waaye dalka inaan ku soo celino dawladnimo dalka inaan ku soo celino amni iyo kala dambeyn iyo meel qawaaniintu ka taliso oo aanay maxaan ku raahdaa kooxaha iyo qabaa'ilka iyo maxaan ku raahdaa firqooyinka iyo waxyaabaha kala qaybsan aanay ka talin laakiin qawaaniinta iyo shuruucda iyo shariicada iyo wixii aan ku ballanay meel ay ka taliyaan inuu noqdo waayo dalka waxa uu muhiimka markaas ayaa karaamadeen iyo dhameystiran ay soo noqonaysaa waxa naga dhaxeeyo oo tilmaamayo oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mas'uuliyadiisa ay ka mid tahay xil saaran yihiin waayo calanka maxaan ku raadayay jamhuuriyadda dhowristiisa ilaalintiisa dastuurka jamhuuriyadda ay leedahay ilaalinteeda waxa dadku ay leeyihiin oo qiyamka iyo dadka ay leeyihiin oo diinta islaamka ku salaysan oo shariicada ku salaysan oo dhaqanka suuban ee Soomaalida ku salaysan oo waxyaabaha in la ilaaliyo ay tahay waay hadaati waati laga hadlayay xilliga nabadda xilliga colaadda waay dhaqanka suuban ee la doonayo waxaan rabaa dardaaranka marka ugu muhiimsan oo waxay tahay mas'uuliyadaha qaateen waxa kamid ah dadka Soomaalida inaad u nuglaataan oo u jiljilcanaataan qofka Soomaaliga markaad la macaamilaysid inaad wax walba ka jilcan tahay ka maxuu ahay degan tahay maxaan ku raadayay kan naxariis badan tahay wax walba yaa la rabaa qofka Soomaaliga ee muwaadinka markaad la macaamilaysid markaad cadawga la macaamilaysid inaad wax walba ka adag tahay yaa la rabaa oo aadan marna u dabcin u naxariisan u turin fursad aadan siinin cadawga hadii alla yiraahdo waxaan leenahay idin leeyahay wiilashii ummadda ayaa tihiin ma aydin wiilashii reer hebel
ma ahidin wiilashii degaan hebel iyo gobol hebel ma ahidin wiilashii maxaan ku yidhahdaa cid gaara iyo waxaad tihiin Soomaaliya wax ka weyn oo la qaato oo lagu istaago oo magacaas loo qaatana ma jiraan waxaan rabnaa mar kale aan ayagana sidoo kale u hambalyeynayaa maamulka Jubbaland oo aan leeyahay maamulkan jiritaankiisa la'aantii suurtagal ma ay noqoneen inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aasaasno oo aan abaabulno oo aan xoojino tababarno qalabayno maanta meesha aan soo gaarno suurtagal ma ay ahayn meel kastoo kalena maamulada ka jiro dhan waa sidaas waxay fududeynayaan jiritaanka maamuladaasi waxay fududeynayaan oo ay u yihiin saldhig in dawladnimadu ay dhisanto ma aha kaliya midda oo maxaan ku yiraahdaa maxalliga ah oo maxaan ku yiraahdaa deegaamada ma aha kaliya midda qaranka inay dhisanta ayaa maamulada ku meel gaarka ee maanta dalka ka jiray waxay u yihiin awood waxay u yihiin fursad iyo maxaan ku yiraahdaa agab ay ku dhismayso dawladnimadii ay u yihiin jiritaanka maamulka Jubbaland federaalka contributions uu ka leeyahay oo la dagaalanka argagixisada dib u xoreynta dalka baahinta dawladnimada ee dalka oo dhan in la gaarsiiyo dhismaha ciidanka maxaan ku yiraahdaa xoogga dalka Soomaaliyeed soo kabashada dawladda iyo waxa dhiman oo dhan ayaa maamul la'aan lama sameyn beero kala degan qoryo isu haysta iska soo horjeeda in badan aan soo ahayn waa noogu shaqeyn weyday wixii hore inaan marka u gudubno maamulo oo Jubbaland ka jiro oo Koonfur Galbeed ka jiro oo Galmudug ka jiro Puntland ka jiro meelaha dhiman waxay asal u tahay ay adeeg u tahay dhismaha dawladnimada qaranka meelan maamul ka jiro oo reera degan yihiin waaba degan yihiin Soomaaliya oo meel walba reera degan laakiin reerahaas wax ka dhaxay aan jirin waraa beerta boodkeeda ay soo riixin waraa maxaan ku yiraahdaa ceelka marka aanu ka cabayo adigu ka cabin war maxaan ku yiraahdaa adiga maxaad gabadhanada u dharbaxday oo maxaad u aragtay xumays war waxaas ku mashquulsan in aan naf ka dayno ma aha waxaasna waa inaan ka ilaalino ka daaweyno oo aan ka kala celino oo ka kala ilaalino inaan isku dirino oo isku waxismin dawladnimada inaan helno waa inaan dawladnimada lagbasaan ku kala ilaalin karna kuma kala ilaalin karna wax kale maalin walba odayaasheena dhaqanka ee wanaagsan markay isku yimaadeen ay dib u heshiisiin galaan oo beero isdar ay ku yeeyaan mid ciyaal suuqa inta soo baxa mid qof kala dilay markaas reer hebel dilay intay noqotay hadana meeshii dib uga soo laakiin kaas ciyaal suuqa markii inta la soo qabto maxkamadda la geeyo waxa dambiga uu galay inta lagu xukumo xabsiga loo diraahay reer hebel dilay ma cid ka dambayso wax sameynaysan sidaas u bay noqonaysaa dambigu waa shakhsi reer hebel la yiraahdo dambiilayaal ama jiraan reer hebel la yiraahdo muxuu ahay malaa'ig ilaahayna ma jiraan reer hebel waxay ka goomaan shakhsiyaadkaasna mas'uuliyadda dambigu waa shakhsi dawlad la'aanta waxay keentay mas'uuliyaddii dambiga inay caam noqoto oo la yiraahdo reer hebel baa xagga ku duulay reer hebel wax dilay reer hebel xagga ka dhacay waxa in la yiraahdo dawladnimaan u baahannahay dawladnimadeena waa raadka aan ku soconno waaye waan isku tagnay mar hore oo aniga iyo Axmed iyo ragga kale maanta talada ku jiraabe aanay tala ku jirin yaa inta Soomaalidu isku tagtay waxay dhahdeen dawladaan dhisanaynaa haye see u dhisanaynaa dawlad federaal aan dhisanaynaa oo taladu ay baahsan tahay oo maxaan ku yiraahdaa dadku ay ayagu hoos u tashadaan oo ay maxaan ku dhaqmaan tiya lagu dhaqaaqay ma garanayo sababta dad badan ay u jeclaan lahayn inay arkaan taasoo 100% sax ah war waa bilaab shalaba ma ay jirin maanta way bilaabatay waan turxaan bixinaynaa waa cilada bixinaynaa wixii ka dhimanaa ku dareynaa wixii zaa'id ku aan ka dhimaynaa laakiin waa sii soconaynaa berina way qurxoonaanaysaa waana hana qaadaysaa hadii alla yiraahdo kalsoonida inaan isku kalsoonaano oo annagu aan isku tanaasulno oo aan maanta beriya ka fiican berida fiican aan gaarna aan dhaano hor u socon hadaan maanta ku mashquulno meesha fadhino ka dhaqaaq weyno berida fiican oo ku wada haminayna ma gaarino maanta bilow baan nahay laakiin waxaan rabaa inaan sheego bilow fiican aad u qurux badan dadnimo iyo dawlad dhisid ay ka muuqataan nahay wax badan noo qabsoomay wax badanna waa naga dhiman yihiin laakiin waxaan qabnaa waxa naga dhiman meeshii naga jirayna waan garanaynaa sidii aan ku gaari lahayna waan garanaynaa dulqaadkii wadada dheer aan sii marayno inaan ku dulqaadano ayay nooga baahan tahay mar kale hambalyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhigga federaalka maamulka Jubbaland ee ka qayb qaatay guddigii ka koobnay dalka oo dhan
هذا إيجا جودي جالس كما كوبنا وكلي دولة فدرال كمان من قبل هذا كوجرا محن كوي هذا عيدا كحوق الدولة الصومالية هذا كوجرا وزارة الجاشان دي جا كوجرتا عالم كي أنا للجوج أنا كابيو أردن أيا قيب كأهو كوجرا سي أنبا محو هاي حلال درارت على وحلا سولا بلابيو وحلا وحينا لكن هل مداربا وروحها وحوفي عن هالمر مسمين كرنو لكن وحا أي حالة ما أنت عن كسوغنا هاي متكفي عن أنو قدبنو مد يرد عن تو هرمر وكم موضع أنو قدبنو سي وحا وحوفي عن الفوق عن أركينا هاي أن أجار نبريها دي الليرة هديتها الدولة ديبو هديتها عيدا بسيب هديتها المحو وحولبا عن تأسوقا عنه إن أن إبر أهم ماشي عن جوجنو عن جوج الجرني عن جوجنو إيه أنا وحي عناية هل كان عن هاي سنة وحبا ودحية سفر دير ودحية مالا لقصي هكذا ودحيسو مالا لقصي بيعبا ودحيسو مالا لقصي شدال قاطع ودحيسو سي لو قارو ماشي قد بس إلى إذا كسوانا قارينا وضدينا وان هاينا وانا كوكوليسا مركلة عمباليو إذا كحوق الدولة الصومالية خاصة ويلشا مانتا هورتي إذا فردية هل كان مقع إلهي كدارتي أو وذا مقلينا مرقاتي كأهين أن برينا أن كسو أوجنا مرقاتون الله لا ما أنت مقع كدارنيسي جوب جوجان أنو كأها وحم مغضة أو تليها هي سراكيشة هي تلسكة هي وزارة هي ملاحظة الدلك هي ملاحظة محور الدولة إذا كل حساب ما يسوى وحم مغضة والله جيد لكن وحاسي وحا الله بربر وحا أن موقن هذه قلبها كجرة وجو مدة أدار مدة موقته فالدنبيت كانت قشنا والوقوع بسنة والوقوع عقابة محكمة عيد مدلين والوقينية والوقحينية لكن قلبي قاعد مدة أدلر ومكرت مدة أدخرسون كرت مدة أن لو جيد مدة ما مركز قاركود كلمة في عن يوقف في عن قوانين في عن انت اللي قالوا يصير الله استعماله ومدة إلهي وقول حساب تمي وجيد مدة بن آدم كقول جيدا بن آدم كقول حساب تمي طليها أوصى كقول حساب تمي أورجا كان كوحدة كان هورنتا كان محنكور هذا أورجا كساس كور أمشي سعون إلى الدولة ده ما كقول حساب تمي إيو ما مولد ما راح يجري قدام لكن وحول جيد واحد قابل رأيته حافظات أمانة ده وحلقوا دي بلقوا آمن بابور كان دور ده إسكاله بارت كان إيجا بحية بابور كاسكاله محاها هبل إيجا إيبيو محاها إيجا قال وحن ضيعان أو ماشى داتسن وربع عما ماشى لا يقال قرر دول دعوة دول ده قرر كنيسة محاها قال عردي سي بعد كيسي هاي سجل ولقيس بيان لسفين إنه الله وحل وأرواحها قلبي قاعد كلا هذا هاي واحد كدارت مقع إلهي ودارت وواحد قلبي قاعد كجر لو جيد واحد لو جيد والقول حساب تميا والقول وحنا هذه القول حساب تمي وين قفك إنك قول حساب تنتهي قول حساب تمي ويسي أيام دم بيجي إسكاله سراكيشة سيجارة أيام ربع أيجنا أول ضدان مع ماضي أما حكمة دي أسكرته هيدي أسكري حن مجري سركان حنا جري إسك إيران معقول ما هنا أسكرتون على هذا صارنو موقت ويلش وادي بديهن وقاب دريهن واسدانو ويل قاب درن مجري سركال كيس ما راح يسون بقاب درن له سيدا هراي بحكمة داسي أي عيدمد وجارن سراكيش مسؤولية ده هقاتين محن كير هذا يددانو وح عقل جا سليم كونه تساح ورواد لمنه أو واد دعوامه أو واد هرادي أو واد دكتوني أنت سوق سبب الأمر تغلده وامد أدمات كدارت أدو أنت سكجرا قاب درها كدرسني مقع حماها كدرسني أو أدو يبلا محو دقن حما كره كدرسني أو أيضا آخر بلا marka intaas waxa wax ugu qiimo badan oo dhiigaaga aad hurtay sharafta iyo karaamada aad leedahay ilaali dadka aad dhiigaaga u horeysay sharaftooda iyo karaamadooda ilaali waa waanadii ugu dambeysay u maleynaa ilaahay idinkiis maalintii ugu horeysay oo aan maxaan ku raacay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si rasmi ah aad uga mid noqoteen weeye maanta maalmaha soo socdana ilaahay idinkiis waxyaabo kale oo maxaan ku raadaay hore u sii socon doona arinta maxaan ku raadaay madaxweyne Axmed uu ka dhawaajiyay ee ku saabsan jaamacadda أنا وحن قرنينا أنا وحن أقارب وحبرشة كجرتي أرنتاس جامعة كسمايو يحارب ده ما أنت مدحونا أنت سوسو سعنا ويشيء هذا نالكم وكشيء أرنتاس وصل له إيه هدي اللي راه أما جامعة أنا ندي أفرينا أرد ده يقصر نقول يسا هدي اللي راه أما مالك جامعة لغاية من باكي حالان كينين هدي اللي راه حالهم باكينين هدي اللي راه لكن هنا جامعة كسمايو دي بوهانا قاعدة أو أي أديجي أي أوهيسي مجتمعة وحوق بدن وقروح بد هذا هو هيسا مقالة مالا يرير محوها كوهيده
laakiin xarunteedii ama xaruntan xarun u dhiganta ama xaruntan lafteeda in ay dib ugu soo noqoto annaga dowladda federaalka ah iyo dowladda maxaan ku yidhahdaa Jubbaland iyo taliska AMISOM waa iska warsanaynaa haddii aan la yidhaahdo xal degdegana waan la imaanaynaa insha Allah haddii aan la yidhaahdo mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo khayr iyo guul iyo wanaag ayaan idin rajaynaynaa ilaahay idankiis waanad guulaysanaysaan annaguna waa idin garab joognaa haddii aan la yidhaahdo insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu